Bismillaahi Raxmaani Raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan maracadda show 22 bisha Juun sanadka 2026 qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah iscasilaadda ra'iisul wasaaraha dowladda Britain waa maxay sababta ka dambaysa dhowr jeer in ra'iisul wasaareyaal badan ay talada isaga dambeeyaan dalka Ingiriiska afartii sano ee la soo dhaafay tani 2022 ra'iisul wasaareyaasha iscasilay waxaan kaloo aan eegi doonaa warbixin gaar ahaaneed oo ku saabsan taliyii hore hay'adda sirdoonka gudaha ee Israa'iil oo la sheegay in si degdeg ah looga saaray gudaha dalka Isotaga Imaaraadka Carabta waa maxay sababta waxaan kaloo aan eegi doonaa Imaaraadka oo dowladda Hindiya ka doonaya gantaalaha Hypersoniga si ay awoodda dalkaasi ay sare ugu qaadaan Mareykanka iyo Iiraan isfahamka dhex maray waxyaabaha Iiraan loo ogolaaday iyo waxa laga doonayo Israa'iil sida ay u danaynayso saldhig ay ku yeelato Somaliland maraakiibta ay doonayso inay geyso magaalada Berbera iyo sida ay mas'uuliyiinta Somaliland arrintaas ay kaga hadleen iyo dabka la sheegay inuu ka kacay goob lagu kaydinayo gantaalada S300 iyo S400 ee dalka Ruushka qodobadaasi kuwa kale ayaan qaybtan kugula wadaagaya insha Allah taala haddii aan waqti u helno soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo marcadda show barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxaa uga cumreynayaa aabo cabdi nuur cismaan oo iisoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal barnaamijkii kan ka horreeyay dad badan ayaa ila soo xiriiray oo ka cabanaya inuusan soo gaarin laakiin waxaan u malaynayaa inay ahayd cillad guud waana arkay dhanka iyo aragtida iyo daawashadaba waxaan rajeynayaa kan inaad like saari doontaan si uu dad badan u gaaro insha allahu tacaala aad baad u mahadsan tahay haddii aanay dhib kugu ahayn markaan aan ku horumarno macluumaadka ku saabsan siyaasadda dowladda Britain ayaa mar kale waxay noqotay sida dhulgariir oo kale oo laga dareemay gudaha dalka Ingiriiska kadib markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo hogaamiyihii xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka Keir Starmer uu maanta oo Isniin ah 22 Juun 2026 uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay isla markaana uu banaynayo xisbiga inay soo doortaan hoggaan cusub oo bedela khudbaddu ka jeediyay afaafka hore albaabka Downing Street ayuu ku sheegay in socdaalkiisii siyaasadeed ee hogaaminta dalkaas uu soo idlaaday inkastoo 2 sano ka hor uu guul weyn uu ka gaaray doorashadii dalka Ingiriiska go'aanka iscasilaadda ayaa yimid kadib markii xisbiga Labour-ka ay wajaheen dhibaato badan oo isbiirsaday dad badan ayaa ku eedeeyay Starmer inuu fulin waayay ballanqaadyadii uu sameeyay markii talada uu qabtay Britain waxay wajahday sicir barar aad u sarreeya koror ku yimid qiimaha nolosha iyo dhibaatooyin waaweyn oo ka jira adeegyada caafimaadka si gaar ahaan adeegga caafimaad ee NHS loo yaqaano waxa kaloo jira cabashooyin ka imaanaya shaqaalaha iyo dabaqadaha dhexe ee bulshada sidoo kale siyaasadiisa ku aadan socdaalka iyo muhaajiriinta ayaa dhalisay dhaleeceyn badan iyada oo taageerayaal aad u badan oo xisbiga Labour-ka ka tirsan ay u arkeen inuu ku dayanayo hadallada iyo siyaasadaha xubnaha midigta fog qasarihii weynaa ee xisbigan ayaa soo gaaray doorashadii dowladaha hoose iyo degmooyinka waxaana uu noqday calaamad muujisay hoos u dhaca ku yimid kalsoonida lagu qabo ra'iisul wasaarihii talada haye xisbiga Reform UK iyo xisbiga Green ayaa guulo muuqda ka gaaray doorashooyinkaasi taasoo sare u qaaday cadaadiska gudaha ee xisbiga waxaana la sheegay in wasiirro badan ay u direen Starmer fariimo iyo warqado ku boorinaya in xilka uu ka dago si xisbiga loogu helo hoggaan cusub oo dib u soo celiya kalsoonidii shacabka mid ka mid ah arrimaha sii xumeeya xaaladda ayaa ah khilaafaadkii ka dhexdhacay dowladda dhexdeeda gaar ahaan dhinaca qarashaadka difaaca taas oo horseeday iscasilaadda wasiirro muhiim ah toddobaadyadii ugu dambeeyay indhaha siyaasadda dowladda Britain ayaa ku sii jeeda iminka ninka lagu magacaabo Andy Burnham oo taageerayaashiisa ugu yaraan boqorka waqooyiga Burnham waxa uu leeyahay taageero ballaaran oo gudaha xisbiga waxaana dad badan ay u arkaan musharaxa ugu awoodda badan ee bedeli karaya Starmer taageerayaashiisu waxay rumaysan yihiin inuu dib u mudeyn karayo xisbiga isla markaana awood u yeelan karo inuu la tartamo xisbiyada kale ee Reform UK iyo xisbiga ee Green doorashada la filayo inay dhacdo sanadka 2028 arrimaha dibadda ayaa sidoo kale door ku lahaa hoos u dhaca taageerada Starmer siyaasadiisa ku aadan dagaalkii Gaza xiriirka Israa'iil iyo la macaamilka maamulka Mareykanka ayaa dhalisay dhaleeceyn xooggan gaar ahaan bulshada muslimiinta iyo carabta Britain
dad badan ayaa ku eedeeyey inuu si buuxda uga hor imaan waayo siyaasadaha Israel, sidoo kalena qaabka uu ula macaamilay madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa lagu tilmaamay mid aanan muujin awoodii iyo madax bannaanidii laga filayay hogaamiyaha Britain. haddii Andy Burnham ninka lagu magacaabo uu ku guuleysto hogaanka xisbiga Labourka, wuxuu wajihi doonaa 2 sano oo adag oo ku soo celinaya kalsoonida codbixiyaasha ka hor doorashada ra'iisul wasaarenimo ee sanadka 2028, halkaas oo kula tartami doono hogaamiyaha xisbiga Reform UK la yiraahdo Nigel Farage, oo si weyn u kordhiya taageerayaashiisa sanadihii dambe, isla markaana loo arko caqabada ugu weyn ee xisbiga Labourka ee dalkaasi Britain. tani sanadkii 2022 markaa UK waxay yeelatay ilaa iyo 4 ra'iisul wasaare. Boris Johnson oo September 2022 xilka hayay, haweeneyda lagu magacaabo Liz Truss oo weliba 45 maalin oo kaliya haystay, waxaana ay ahayd ra'iisul wasaarihii ugu muddada gaabnaa ee taariikhda dowladda Britain. waxa ku xigay Rishi Sunak oo isagana muddo 2 sano ah xilka hayay. waxa ugu dambeeyay Keir Starmer oo Luulyo 2024 xilka qabtay, maantana gebi ahaanba xilka iska casilay. muddo 4 sano ah 4 ra'iisul wasaare ayay Britain sii maraysaa. taasna waxaa lagu tilmaami karayaa in xaaladda siyaasadeed ee dowladda Britain aanay deganeyn. waan arki doonaa wax walba oo ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. sida warbaahinta Israel ay baahisay, madaxii hore hay'adda sirdoonka gudaha ee Israel ninka lagu magacaabo Roner Bar ayaa si degdeg ah looga soo saaray gudaha dalka Isutaga Imaaraadka Carabta kadib markii sida la sheegay la helay digniin dhanka amniga oo la xiriirta suuragalnimada weer la doonayo in isaga lagu beegsado. warbaahinta guud ahaan ee Israel iyo kuwa gobolka ee Carabta ayaa baahinaya Roner Bar ninka lagu magacaabo in la helay xog ku saabsan in Iran ay doonayso inay beegsato. Imaaraadka Carabta waxaa kula sugnaa xaaskiisa iyo xubno kale, waxaana si gaar ah sida la sheegay uu kaga qayb galaya kulan dhinaca amniga kaasoo martigeliyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta Cabdullaahi bin Zayed Al Nahyan. sidaasi daraadeed waxaa la sheegay inuu ka qayb galay shirka mas'uuliyiin kala duwan oo hay'adaha amniga, sirdoonka iyo go'aan qaadashada ee dalal kala duwan oo caalamka ayaa la sheegay in shirka sidoo kale ay ka qayb galeen. wariyaha Israa'iiliga ah ee lagu magacaabo Majel Shamis ayaa sheegay in inta Roner Bar uu ku sugnaa Imaaraadka Carabta in la helay digniin dhanka amniga oo aan caadi ahayn, taasoo dhalisay walaac ku saabsan amnigiisa iyo suuragalnimada weerar dowladda Iran ay ku beegsan karayso. kadib digniintaasi waxaa la sheegay in la go'aamiyay si degdeg ah in isagii xaaskiisa looga saaray gudaha Imaaraadka Carabta diyaarad, waxaana diyaaradaasi dib ugu celisay gudaha Israel si ammaanka loo xaqiijiyo. laakiin mas'uuliyiinta Isutaga Imaaraadka Carabta arrintaani way ka hadleen, waxaana ay beeniyeen gebi ahaanba macluumaadkaas iyo warkaas. waxa kaloo ay beeniyeen wararka sheegaya in shir dhanka amniga oo xiriir la lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta lagu qabtay magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. xiriirka Imaaraadka Carabta iyo Israel ayaa mid diblomaasiyadeed iyo iskaashi dhanka amniga ah. tani heshiisyadii caadiyeynta xiriirka ee 2020 wixii ka dambeeyana kulamo kala duwan ayaa dhacay. si kastaba haatee, marar badan waxaa soo baxa wararka ku saabsan kulamo ama wada shaqayn dhanka amniga oo warbaahinta Israel ay baahiso, kuwaasoo mararka qaarkood dowladda Imaaraadka Carabta gabi ahaan ay beeniso. ilaa iyo haddana ma jiro caddayn madax bannaan oo rasmi oo xaqiijinaya warka Israel ka soo baxay warbaahinteeda, kaasoo si buuxda u taageeraya beeninta Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale macluumaadka ka soo baxay dhanka iyo Imaaraadka. warkan ayaana abuuraya jahwareer dhanka amniga ah. ma waxay warbaahinta Israel ay ugu talagaleen qorshahan Imaaraadka Carabta iyo amnigiisa lagu qalqalgelinayo, mise sheekada waxbaa ka jira oo macluumaadka ayaa gabi ahaan la beeninaya? wax walba oo ka soo kordha qodobkan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. like-san muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. dhinaca kalena wakaaladda wararka ee Reuters ayaa baahisay in dowladaha Imaaraadka Carabta iyo dowladda Hindiya ay wada hadallo ay yeesheen oo ku saabsan iibinta nidaam difaac oo dowladda Hindiya ay soo saarto iyo gantaalo casri ah. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xiganaysa ilaa iyo 4 ilo wareed kuwaasoo magacyadooda aan la shaacin, waxaana lagu warramayaa in nidaamyada difaaca Imaaraadka Carabta uu xiiseynayo ay ka mid yihiin gantaalada xawaaraha sare ku socda ee BrahMos loo yaqaano, kuwaasoo Hindiya ay soo saarto. 2 ilo wareed oo kale arrinta si weyn ula socda ayaa Reuters u sheegay in wada hadallada sidoo kale ku saabsanaayeen suuragalnimada iibinta nidaamka difaaca ee dhanka cirka ah ee Akashtir lagu magacaabo. Imaaraadku wuxuu muujinayaa danaynta noocyadiisa kala duwan ee hubka, isagoo doonaya in isbeddel weyn uu ku sameeyo hanaanka loo xaqiijinayo amniga guud ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. wax walba oo ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. markan aan eegno
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda maraykanka ayaa isniinta maanta waxa uu shaaciyey in dowladda maraykanka ay soo saartay ruqsad guud oo kumeel gaar ah oo socon doonta ilaa iyo 60 maalin taasoo u ogolaanaysa dowladda iiraan soo saaridda iyo dhoofinta iyo iibinta saliidda dowladda iiraan. Tallaabadan waxay qayb ka tahay hirgelinta qodobadii heshiiskii is-afgaradka oo toddobaadkii hore ay kala saxiixdeen Washington iyo Tehran si loo soo afjaro colaadii labada dhinac u dhaxaysay. wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa hadda u muuqata cunaqabataynta inay qaaday islamarkaana ruqsadan cusub ay u ogolaanayso dowladda iiraan inay shidaalkeeda ay soo saarto caalamkana u iibgeyso. sidoo kale badeecooyinka batroolka iyo batrokimikada ee asal ahaan laga soo qaadaya gudaha dalkaasi iiraan ayaa lagu warramayaa in loo ogolaaday ilaa 21 Agoosto ee sanadkan. sida ku cad heshiiskiisa afgaradka maraykanka wuxuu aqbalay inuu bixiyo ka dhaafitaano u saamaxaya dowladda iiraan inay dhoofiso saliideeda, yacni cunaqabataynta in laga qaado batroolka iyo dhammaan adeegyada kaleba. wasaaraddu waxaa kaloo ay sheegtay in ruqsadani cusub ay u ogolaanayso saliidda ceyrin ee dowladda iiraan iyo kuwa batroolkaba in la geyn karayo ama laga dejin karayo gudaha dalka maraykanka oo maraykanka uu iibsan karo. wasaaraddu waxay sheegtay marka tani inay ka dhigan tahay in macmiilka cusub maraykanka uu noqonayo oo macaamiisha qayb aysan ka noqon doonin Kuuriyada Waqooyi, Kuuba iyo sidoo kale Ukraine. yacni shidaalkan iyo waxyaabaha hadda loo ogolaaday Iiraan inaysan dalalkaas u iibgeyn karin, maraykankana uu ka iibsan doono. waan arki doonaa qodobkaas waxyaabaha ka soo kordha. markaan aan eegno warbixinta ku saabsan Israa'iil iyo danaynteeda saldhig military. sida warbaahintu ay baahisay laguna daabacay wargeyska arrimaha ciidanka ee Defense Security Asia, waxa uu sheegay in Israa'iil ay danaynayso inay hesho marin aad muhiim u ah oo ay ka howlgalaan ciidanka dhanka badda. marinkaas oo la tilmaamay inuu noqon karayo magaalada Berbera ee Somaliland. waxay doonayaan halkaasi inay geeyaan gujisyada ugu muhiimsan ee Israa'iil. dhowaan wasiirka gaashaandhigga ee Somaliland Maxamed Yuusuf Cali ayaa 17 bishan Juun 2026 wuxuu beeniyey wararka sheegaya in Israa'iil saldhig military ay ka dhisanayso Somaliland, isagoo tilmaamay warar aan sal iyo raad lahayn inay yihiin macluumaadkaasi. hase yeeshee wuxuu xaqiijiyey in Israa'iil ay ka qayb qaadanayso tababarka la siinayo ciidanka Somaliland oo booliiska qayb uu ka yahay. sidoo kalena madaxweynaha Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in saldhig military oo Israa'iil ay leedahay hadda inuusan miiska saarnayn, islamarkaana mas-uuliyiinta Israa'iil uusan kala hadlin, balse gebi ahaan meesha kama saarin kadib markii dhowaan waraysi uu siiyey warbaahinta Israa'iil in mustaqbalka Israa'iil ay saldhig yeelan karto. inkastoo yiri taas waxay sii xoojinaysaa aragtida iyo iskaashiga dhanka amniga ee labada dhinac. warbixinada hadda soo baxaya waxay sheegayaan Israa'iil inay qiimeynayso suuragalnimada in maraakiibteeda quusan nooca loo yaqaano Dolphin Class ay ka howlgalaan magaalada Berbera. tallaabadan ayaa waxay la xiriirtaa xaqiijinta dhanka amniga iyo saameynta Israa'iil ay doonaysa inay ku yeelato biyaha badda cas. sida lagu sheegay warbixinta wargeyska Defense Network uu daabacay isagoo soo xiganaya wariyaasha Israa'iil iyo warbaahintoodaba, mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa si weyn u baaraya oo qiimeynaya fursad ballaaran oo ay ku heli karayaan joogitaankooda dhanka xeebaha Somaliland kadib markii ay sii xogeysteen xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Tel Aviv iyo Hargeysa. muhiimadda istaraatiijiyadeed ee magaalada Berbera waxa ay ka timaadaa goobta ay ku taallo. dekadu waxay aad ugu dhowdahay marinbiyoodka Baabul Mandab, waa meel sanad kasta ay maraan 12% ganacsiga dhanka badda ee caalamka iyo qayb weyn oo ka mid ah dhoofinta tamarta dunida. qoraayaasha iyo falanqeeyaasha Israa'iil waxay aaminsan yihiin in haddii Israa'iil ay hesho meel maraakiibteeda quusa ay kaga howlgalaan geeska qaaradda Afrika, in si weyn ay u yareyn karayaan waqtiga ay kaga jawaabaan weerarada iyo gantaalada Israa'iil ay kala kulanto Xuutiyiinta marka la dagaalamayo, kuwaas oo ka howlgala xeebaha galbeed ee Yemen si toosna uga soo horjeeda Somaliland. Israa'iil ayaa inta badan markay la dagaalamayso Xuutiyiinta dalka Yemen si ay kaga hortagto gantaaladeeda waxay adeegsataa dalalka ugu dhow si gantaaladaasi qayb dhexe loogu qabto. laakiin tani waxay qayb ka tahay marka laga yimaado dagaalka Xuutiyiinta loolanka istaraatiijiyadeed oo Israa'iil ay doonayso inay isku ballaariso xeebaha iyo sidoo kale wadamada kale xuduudahooda. warbixintu waxaa sidoo kale lagu sheegay in Israa'iil ay ka walaacsan tahay badda cas inay isu bedelayso jihad dagaal oo isku xiraysa Gaza, Lubnaan, Suuriya, Ciraaq, Yemen iyo saameynta badeed ee dowladda Iiraan. Israa'iil kaliya ma aha Maraykanka, Ruushka, Shiinaha iyo dowlado badan ayaa si weyn u daneynaya inay saameyn ay ku yeeshaan biyaha Baabul Mandab. dowlado badanna waxay isku dayeen inay saldhig ay ka samaystaan magaalada Berbera iyo deegaano kale oo Somaliland ka tirsan. mas-uuliyiinta Somaliland faahfaahin kale oo dheeraada ma aanay bixin haddii maraakiibtan loo ogolaanayo halkaasi inay soo gaaraan iyo in kaleba,
macluumaadyadeena kale ayaanu kugula wadaagayaa wax walba uu kasoo kordhay insha allah. ugu dambeyntii goob ay yaalaan nidaamyada gantaalada dowladda ruushka ee lidka diyaaradaha S-300 iyo S-400 iyo sidoo kale saldhig ciidan oo ku yaala jasiiradda Qrim ama Crimea ayaa lagu warramayaa dab inuu qabsaday. sida lagu sheegay warbixintan oo laga soo xigtay hay-adda la socodka ee dababka ayaa diiwaan gelisay in dabkan uu ka kacay aag difaac oo gantaalada S-400 iyo S-300 ba yaalaan kana tirsan deegaanka Kabzyuk lagu magacaabo meel u dhow tuulada Krodnoya oo xeebaha gobolka Azov gacanka Qrim ama Crimea. dab kale ayaa sidoo kale laga diiwaan geliyay gudaha xarun ciidan oo ku taala magaalada Kerch lagu magacaabo. ma jiro macluumaad kale oo dheeraad ah oo dowladda ruushka ay soo saartay oo arrintani ku saabsan, laakiin waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordhay. dhinaca kale dowladda Ukraine ayaa qiranaysa sida ay u adag tahay in laga hortago diyaaradaha isqarxinaya ee drone ee ka imaanaya dhanka iyo dowladda ruushka. saraakiisha dhanka militariga ayaa warbaahinta la wadaagay in xaaladdu ay ku adkaatay inay ka hortagaan diyaaradahaasi oo ka imaanaya gudaha dalka ruushka. wax walba oo arrimahan ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha allah. like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay.